بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لمان أصحابتي إذا آتي وآدت أبنهتنتهين هل كري وحان قصو قد بنا برنامج يحيي صالح فضلا وغورينتي سبسكرايب تاو سيكو سو قارن برنامج يدا شيسا بدن كسو فيديو قادة مسترن مجيئيس أو سدحان وشيخ نورين محمد صديق balse loo garan og yahay Sheekh Nuurayn ayaa ahaa imaam caan ku ah akhrinta Quraanka Kariimka isagoo ku akhrin jiray qiraa'ooyin dadku ay aad u jecel yihiin iyo cod aad u macaan. Waxa uu imaam ka soo noqday masaajido badan oo ku yaala magaalada Khartoum ee dalka Suudaan. Allah u naxariistee Sheekh Nuurayn ayaa shil gaari ku dhintay 7 bishii November ee sanadkii tagay 2020 xilligaas oo uu jiray da'da 38 sano. xiliyadan oo kale marka la gaaro bisha barakeysan ee Ramadaan waxa uu ahaa imaam dadka tujiya salaada taraawiixda, balse saadkan alle kuma simin inuu tujiyo. codka macaan ee alle uu siiyay darteed ayaa waxa uu ku degay quluubta muslimiin badan, waxaana dadku ay buuxdhaafin jireen masaajidka uu dadka ku tujinayo salaada taraawiixda, halka kuwa kalena ay baraha bulshada toos uga dhageysan jireen codkiisa macaan. naxariistii janno Allah ka waraabiyo. walaalayaal, ilaahay dartiis aan u ducayno caalimkii weynaa ee muslimiinta. ilaahay ha u naxariisto Sheekh Nuurayn Maxamed Sadiiq. waad ku mahadsantahay daawashada. haddii aad daawanaysay waqtigii ilaa iyo waqtigan, waxaynu ka codsanaynaa inaad saaxiibadaada aad u sii shargalayso si ay ayaguna ugu duceeyaan Sheekh Nuurayn Maxamed Sadiiq. waad ku mahadsantahay.